صوصك يلا صباح وبرنا هذا يلا صباح فين يلا صباح اللي عم نفتنا دار مدار انا بدي ارسي نقول قارن دمنا شوف كان دمي تو جوي نصرف نصرف ريال عم سينا مكو غنا تو ايفون كون afeen ka hadlay انت قال شو فاين هاي اسمه كاجد كاجد دار دم اوكي اي afeen ka doorbaan la daro قابي لا كاس قابي اسكو دمي وضح لما حد في عنا كدار قبنا كاس صورك قبنا صورك قبنا كاس دمي عبد الله دمي ابو دمي لبدان انا غفر نقدمي انا لا اله هاي دارمتين ديار هاي كل على فيري على ببري بقرب كعلم انسانو سامو هاي gaariga ma maray mise bakan wala dhiga faayeen شكرا داير aad iyo aad ma santahay gaarigan wuxuu ku qarxay wadada dhexdeeda marka wuxuu aad ugu dhow yahay goobta qaraxa maqaayada Somali Cafe oo ah maqaayad runtii aad dadku ay u imaanayeen bariyii dambe oo maqaayad badan ah muxuu ahaa laakiin si sax looma xaqiijin karo in qaraxan uu ahaa bartilmaameedka in maqaayada ay ahayd in kale sida aragteen afeenkii gobolka Banaadir ayaa halkan ka hadlay waxa uu sheegay in afar qofood diiwaangeliyeen oo dhimasho ah inkastoo aan lahelin macluumaad intaas ka badan waxa idin muuqda waa gaarigii qarxay burburkiisa dhowr gawaari ayuu saameeyey dabcan maqaayadan waa waxay maqaayad cusub oo sameynaysa korokac dad fara badan ayaa ku xirnaa waxyeelada ugu weyn waa goobta ay soo gaartay sidoo kale waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiyadii u dhawaa halkan waa isgoos agaarka isgooska shaqaalaha shileem Soomaali dad si fiican idinku sharxo waa shileem Soomaali wadada dheerada Makka al-Mukarrama saaxiibkii Munasar ayaa ila jooga Munasar هاجر هذا ما صدق runtii goobtan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta ku dhimatay waxa ka dhacay qarax sidoo kale karto ilaa hadda si sax ah ciidamada dawladda iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ilaa xitaa afayeenka hadda la hadlayay si toos ah ma xaqiijin in qaraxan uu ahaa midkiisa
maqaayadda Soomaali ka fiican muddo bilooyina ay furan laakiin qayb ahaan marka la fiiriyo dhinaca laamiga uu ku yaalo u dhowdahay maqaayadda runtii maqaayaddu waxay ahayd maqaayad ay dadku aad u isticmaalaan oo dhawaan la furay dad badan ay imaan jireen waxaana sidoo kale adeegyada take away-ga ama safaariga iyo sidoo kale raashinka tooska ahba ay dadku ka qaadan jireen marka waxaan aragnay qof ka mid ah shaqaalaha oo laga soo saaray maqaayadda gudaheeda iyo sidoo kaleeto ilaa iyo 3 qofood oo kale oo gaadiidka degdeg ee gurmadka oo goobta soo gaaray u gurmadeen dadkii goobta ku soo horeeyay oo ahaa dadkii ugu dhawaayo meelahan jooga waxay xaqiijiyeen in ilaa iyo 7 qofood isku celcelis tiro gaaraysa laakiin number sax lama hayo inay dhaawac uu soo gaaray sida aad ogtahayna saraakiisha dowladdu si sax tiro sax amaan ay xaqiijin taliyaha ciidanka booliska Bashiir ee Amerika ayaa goobta soo gaaray saraakiil kale oo ciidamada dowladda oo qaameed kala duwan way yimaadeen dabcan markay qayb ay fiiriyeen oo ay mindayeen xaaladda wax saxaabada la hadlay ma jiro marka laga reebo afayeenka cusub ee gobolka Banaadir oo baahida la hadlay sidaas ayayna goobta uga tagay marka wadadan waxay ahayd waddo mashquul badan xiliyadan hadda waad arki kartaa inay wadadii guud ahaan ciidamadu ay xireen oo dabcan qaraxi saameyn uu ku yeeshay goobo ganacsi ah furnaa qof walba ganacsigiisa ayuu la degdegay sidii uu u xiri lahaa sidaas ayayna wadadii ku noqotay meel hadda xiran oo ka jirta xaalad adag oo dhinaca nolosha ah oo mar qura ay isbedeshay oo iftiinkii wadadan ka bixi jirayba uu baaba'ay ilaa hadda gaariga noociisa cid xaqiijin karta ma lahan gaariga dhashay waa midkan aad arki karto haajir oo iga dambeeya oo runtii asaga in baaba'ay oo biro ayaa ka muuqda marka lama ogaan karo sidoo kale gaarigaas aad ujeedid dad ayaa saarnaa sida wararku sheegeen waa rajeynaa inay nabad qabaan aad u mahadsan tahay haajirow